1430 iyo lama maalmood oo madaxweyne xasan sheekh xilhaynta fiila Soomaaliya ku dakeynayay ayaamaha dhamaadka ayaa sii dhow 29 maalin ayaa ka hartay muddo xilal la isku raacsan yahay halkaas wixii ka dambeeyana waa halka ay ka soo bilaabanayaan weerar aanu jeclayn madaxweynaha iyo taageerayaashiisu taasoo la aaminsan yahay in Soomaaliya ay wax badan ka luminayso 4 toddobaad oo aan waasan u ahayn dawladda ayaa bilow gabadhacleynta siyaasadda Soomaalida ayaa samada joogta عين ورق أياجرا معارض إلهي محافظنا هنجبادوه واترا بيل قولك سوحي الشيء إن أي كدقة ستيادة تنقوش هاني دينيسا هو برورس الدبع أياجرا دولدنا وحي أودين إيسا إن سبب كعيدا كيدا أو يكلهو فيسا مدحونو كلسونيكم قواس راكيش إلى هوريمها وعلى نحقري تضباليا كهورنا السفمر أسكري كستجي في هوسات كيسلوغو أوغانيو أو كلفاي إن بقل يكونتن أسكري لغا رعديو guutada madaxtooyada ee 77 loo yaqaan ayaa fulay mucaaradka muqdisho ayay soo galeen xaqiiq la hubana waa in qolo kasateeda ay u jiiraadinayso madaxweynuhu wuxuu isku arkaa inuu haysto muddo dheeraad oo sanada dala deegaanka uu yahayna aan laga daba hadli karin laakiin taas lidkeeda ayay madasha samata bixinta ee magaalada muqdisho ku sugan ay sheegayaan waxaanu eegaynaa kala aragti duwanaanta iyo qolo kasta sida ay u qaadayso go'aanada dhankeeda oo roon وافي سكوير ومشروع وينا أبيد لقى هرقليو حافظة باكلان مقالة نيروبي waxaa isugu jira guryo deegaana xarumo ganacsi iyo hoteelo five-star waa xarunta cusub ee nolosha casriga iyo ganacsigu ay ku kulmaan isku marna aad keli karto wixii faahfaahina lambarada shaashada ka muuqda 6 tallaabo ayay qaaday fiila Soomaaliya si ay mucaaradkeeda uga adkaato madaxweynuhu waa kala hufay ciidanka boqolaal ayaa loo kaxeeyay furiimo fog qaar waa la reestay odayaasha beelaha sanuuda dhaqaale ee dhulalka laga helay ay dawladdu taabsiisay si aysan qayb uga noqon ajenda siyaasadeed looga hor imaan kara dhankeeda iyada oo laga doonayo in loo adeegsado inay kala furfuraan maleeshiyaadka ilaa xubnaha mucaaradka ee waaweyn gobolada labada shabeelle ilaa furimaha ciidamada ee caasimadda gudaheeda ku yaal waxa la mamnuucay in ciidan ka bixi karaan soona gali karaan magaalada Muqdisho askari kasta oo fasax qaadanayana dabagal ayaa lagu samaynayaa loomana ogolaan karo in uu tago xubnaha mucaaradka oo la kulmo ee saamin qaybsigiisa kii la ogaadana dawladdu waxay sheegaysaa ugu hanjabaysaa inay liiska ciidanka gabi ahaan ka tirtiri doonto ganacsatada qaar ka mid ah oo dhaqaale xoogan ka sameeyay ka bic mushtarkii dhulka ilaa mashaariicaha danabaysan waxa loo dhiibay layli iyo shaqo hawlo oo dhameystiran oo ah in dhalinta ilaa dadka saameynta leh gacanta ku dhigaan oo ay ka joojiyaan qayb ka noqoshada tareenka mucaaradka u dhashay caasimadda iyo nooc kasta oo ay dawladda kaga hor imaan karaan qaar ka mid ah ganacsatada ay saami qaybsiga wadaagaan madaxweyne xasan sheekh ee ku sugnaa qaar ka mid ah dalalka dariska waxa la falay inay culays saaraan qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee xisaab hoosaadka wadaagaan ayna bilaabaan oo geliyaan ballamo siyaasadeed ilaa is aragiyo kadisa ama erga siyaasadeed si loo helo waqti dhumis xubnahan lagu sameeyo iyadoo hadafku yahay iibsiga dharaaraha ilaa shaki gelinta xubnaha golaha mustaqbalka ee Soomaaliya dhalinta ilaa warbaahinta qaarkeed ee Muqdisho waa la danabeeyay sida ay xoguhu sheegayaan waa laga mamnuucay in ay baahiyaan xogaha dawladda lidiga ku noqon kara qaarkood ayaa loo hanjabay kuwana waxa laga eegay jihada dhaqaalaha qaybna waa la xirxiray taas oo yoolka kama dambaysta ay tahay in dawladdu ay doonayso aamusinta cod kasta oo ka aragti duwan qodobka lixaadna waxa uu yahay xirxiridda cid kasta oo tallaabada dawladda diiday gaar ahaan dhalinyarada abaabulka ee damaca madaxweynaha ka soo horjeeda qaar ka mid ah ayaa xabsiyada wali ku jira xasan sheekh maxamuud oo ka mid ah xubnaha caburinta nacab iyo siyaasi hadal jeedintiisu ay ka kan tahay ayaa hadda aad uga dagaalamaya cod ka soo horjeeda in la maqlo isku diyaarinta mucaaradka ee dhabwajihida xasan sheekh maxamuud ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho foolaadka golaha mustaqbalka gaar ahaan madashii samata bixinta ee xisaab hoosaadka ay wadaagaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay hadda yimaadeen magaalada Muqdisho kulamay ka wadaan waxay doonayaan inay helaan ugu dambeynta inay doorasho ku khasbaan saaxiibkoodii hore ee hadda fiila Soomaaliya jooga ayaga furimaha way qaybsadeen loolanka iyo abaabulida kulamadana way ka shaqeynayaan bandhig kulan oo weyn ayna qabanayaan oo saami xisaabtooda sida ay sheegayaan waxay diyaar u yihiin inay la gaaraan xasan sheekh isla 10kii la arkay abriil 2022 iyo in miranaayo karkaarka loo istaago si miiska xoog loogu soo fariisiyay madaxweynaha ayna noqoto aminta ka hadalka doorashooyinka iyadoo la wada siman yahay
maalin ka hor waxay u sheegeen qaar ka mid ah wakiilada caalamiga ahi xubnaha inay ixtiraamayaan muddaxileedka laakiin aysan dheeraad aqbali doonin ayna sugayaan dhankooda inay dhaqaalaha ka joojiyaan oo ay ka tallaabo qaadaan mid shaki ma leh dhinacyadu sida ay la wareedyo kala duwan sheegayaan inay isbaacsi isla gaari karaan walaac badan lagama qabo haddii aan la helin heshiis siyaasadeed laakiin sida ay u kala adkaan karaan ayaa dood ka taagan tahay karaanka mucaaradka ee muqdisho ayaa iyana la eegaya weli dad badan waxay shaki ka muujinayaan sida ay ugu dhiiran karaan isla intii xasan sheekh maxamuud uu hore u sameeyey taasoo yoolkeedu u ahaa in doorasho lagu qasbo xukun kasta oo jooga dad badan ayaa isweydiinaya su'aasha mucaaradka saami qaybsiga la wadaaga madaxweyne xasan sheekh ma haystaan awood iyo karaan ay ku hoostaagi karaan damaca madaxtooyada mise ku soo dhawow daarul asnaan dental clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah hindiya inaad aado uma baahnid garowe iyo boosaaso ayaad ka heli kartaa ilkaha maqan daarul asnaan dental ayaa ku haya hal waar oo caafimaad leh